السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتي من ملك سجوتان كسر وهذا ورك قلم تلفزيون كشيتي waxaa idin la socodsiin doontaa anigoo israabi qodobada warka ugu door karoona waxaa kamid ah shacabka deegaanka ayaa waxaan ugu baaqayaan xifaaltanka siyaasadeed iyo waxyaabaha hoose ee gudaha deegaanka ka jira aysan keenin inaan u midoobeyno danaheena guud waxaa sidaas yiri madaxweynaha dowladda deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Liibaan oo xafiiskiisa ugu waramay SRTV ayaa sheegay in gobolka laga fuliyay mashaariic mug leh waxna ka bedeshay ka jawaabida adeegyada aasaasiga ah ee gobolka daawadayaal warkaasina aynu wada daawano gobolka Liibaan wuxuu ka tirsan yahay 12 gobol dowladda deegaanka Soomaalida markaan u imaado xagga warbixin kooban isbedelka kadib guud ahaan shacabku waxay heleen isbedel nabadeed xorriyadeed oo xagga nabadgelyo buuxda oo xasilooni leh ay shacabku maanta ku nool yihiin wax cabsi ahna dhaqdhaqaaqooda iyo noloshooda kama jiro xagga xorriyadana waa dad xor ah oo fikirkooda ra'yigooda xor ah fagaarayaashana ka dhiibta fikradaha iyo baahiyaha ay qabaan haddii cabashooyin jirtana meesha ay khusayso cidda khusayso toos uga caban karaan xagga sidoo kale xorriyadda siyaasadda waa xorriyad qofka aan lagu caburinaynin fikirku rabo inuu taageero guud ahaan xasilooni iyo xorriyad fiican oo deganaansho siyaasadeed leh ayaa ka jirta guud ahaan gobolka markaan u imaado xagga arrimaha bulshada iyo horumarka isbedelka kadib shacabku waxay heleen horumar ballaaran oo la dhihi karo muddo fara badan oo ka horreysay lama helin natiijada maanta la haysto ayaa maanta shacabka ku dirsanayaan haddii aan qayb u dul istaago dhanka waxbarashada guud ahaan xukuumaddu waxay xoogga saartay tayeynta iyo gaarsiinta waxbarashada guud waxaana gobolka laga hirgeliyey adeegyaha waxbarasho oo aad u ballaaran qaybo ka mid ah haddii aan soo qaato waxaa ka mid ah boarding schoolada 2 boarding school oo degmada Filto iyo degmada Gurdama laga fulinayo ayaa gobolka ka jirta boarding school saddexaad oo aan rajaynayo 100 milyan laga fuliyo waa hay'ad aan kala wareegnana u jira sidoo kale waxaa la dhisay dugsiyo sare oo isbedelka kadib ilaa 7 dugsi sare ayaa la dhisay oo degmooyinka gobolka qaybo ka mid ah laga dhisay iskuulada ay maamulada degmooyinka ku dhiseen iyo dayactirada iyo ballaarinta lagu sameeyay marka ugu darana iskuulo aad u fara badan oo tiradooda ay ballaaran tahay ayaa la sameeyay dhammaan iskuuladaasi barashadii ka socota shaqaalihii loo baahnaa oo loo shaqaaleysiiyay macallimiintii way joogaan agabkii loo baahnaa oo loo keenay waa iskuulo badankoodu maanta shaqeynaya marka laga reebo hal boarding school oo shaqadiisu weli socoto oo kan Gurdama wala inta kale adeegoodii way fuliyaan wana shaqeeyaan shacabka deegaanka ayaa waxaan ugu baaqayaan xifaaltanka siyaasadeed iyo waxyaabaha hoose ee gudaha deegaanka ayna keeninaan u midoobeyno hodanaheena guud sidaas waxaa yiri madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar daawadayaal kulibkaasna ayna wada daawano la socoto dalkan Itoobiya taariikhdiisa hore uma dhicin shir noocan oo kala ah oo la yiraahdo wada xaajood qaran iska daa wadan dagaal caadiistay oo boqolaal sano dagaal ku jira dalalka xitaa aan dagaalka ku jirin ayaa mowduucyo fara badan marka ay soo baxaan waxa dhaqan u ah in qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta civil society-ga odayaasha hogaamiyaasha dhaqanka iyo diimuhu intay isu yimaadaan inay ka wada hadlaan oo yiraahdaan hawlahan soo kordhay sideynu maaragtay u aragnaa maxaynu ka yeelnaa in la isweydiiyo ma dhicin dalkeena Itoobiya maadaama ay taasi dhicin fikir walba oo siyaasadeed lagu kala duwanaado wuxuu ahaa mid qoriga la soo qaadanayo oo xoog lagu kala baxayo dhaqankaasi inuu istaago wada xaajood qaran wuxuu leeyahay ahmiyad gaar u leeyahay inaga deegaanahan Soomaalidana maadaama su'aalo fara badan aan qabno oo khayraadka la xiriira khayraadka sidee khayraadka uga faa'iideysanayna dalka Itoobiya inuu ku jirna khayraadkeena sidee uga faa'iideysanayna maxaan ka helaynaa su'aalaha la xiriira xuquuqda aynu leenahay matalaad oo maaragtay qaarkood aan rabno inaan soo bandhigno su'aalo la xiriira muxuu ahaa qaabka waxyaalaha dadka kale Itoobiyaanka aan la wadaagno oo dhanka nolosha way jiraan waxyaalaha inaan gaar inagu ugu jira xuduudaha kale xuduud ballaaran ma inagu leenahay ganacsi noocee baynu ku jiraynaa
arrimo badan caqabad inagu ah iyo reer guraaga laftigiisa siyaasadaha reer guraagu intee lagbay maaragtay dhexaad u yihiin siyaasadaha dalka ee guud ee horumarinta waxaasoo dhan waa su'aalo aan runtii maanta fursad u helayno inaan soo bandhigno oo aan uga faa'iidaysano wadaxaajoodka qaran ee ka socda dalka shacabka deegaanka Soomaalida waxaan fariin u farayaa dardaaran ah waxaynu wax ku soo dhacsan karnaa midnimada baa ina anfacaysa afkaaraha siyaasadeed inaguna waa ku kala duwanaan karnaa tartan siyaasadeedna xalaal weeye laakiin mawduucyada guud ee xalgalka ah ee ummadeena iyo shacabkeena quseeya ee masiiriga ah ahaanshaheena diinteena dhaqankeena khayraadkeena wixii la xidhiidha jiritaankeena wixii la xidhiidha hal meel aan uga soo jeedsano aan u midowno aragtiyada hoose ee xifaaltanka siyaasadeedna yayna keenin inaan ku kala duwanaano inaan u halganno si wada jira aan ugu halganno wixiina khuseeyo ee jiritaankeena daawadan intaas waxaa inoogu eeg warkii galabnimo ee telefishinka JTM waxaad la socodsiinaysay anigu waa Isra Ibrahim Aadan Israhabi inta warkan warkii xigay kulmi doona waxaan idinkaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh